kulanti wanaagsan khiyaarta nala socota meel kasta oo aad dunida ka joogtaan jimco wanaagsan ayaan idin leeyahay waa 27ka maarso sanadka 2026 timinta caawa iyo barnaamijka faaqidaada wararka gobolka bariga dhaxana waxaa kamid ah xiisadu meel adag ayay gaartay waxaanay u muuqataa markan in aad ay u kala safarayaan wadamadii kala duwanaa ee dagaalka gobolka bariga dhexe isku haystay Trump waxa wajahaya mid kamid ah dhalacayntii ugu kululeyd oo uga imaanaysa saaxiibadiisa NATO marka la fiiriyo hogaamiyaha guud ee wadanka Jarmalku waxa uu leeyahay Trump waxa uu ka shaqeynayaa xaalad qariska tuurnimo ah isagoo gobolka bariga dhexe ka dhigaya meel dunida saameyn ku yeelanaysa oo faraha ka sii baxaysa taladeeda Friedrich Merz ayaa warka uu goor dhaweyd ku dhawaaqay idin la wadaagaya inta aan barnaamijka ku guda jirno dawladda Iran waxay ku dhawaaqday inay ka baxayso mid kamid ah ballamihii ugu waaweynaa ee dagaalka oo ah in aan la beegsan goobaha rayidka waxa ay sheegtay xarunta ugu weyn ee biyaha ee Tehran in ay weerar ku qaaday iyadoo tan la filan karo in ay Iraaniyiintu ku jawaabi karaan duqeymo kale oo saameyn ku yeelan kara gobolka bariga dhexe haddaba duqeyntaasi sidee u dhacday ciidamada Mareykanku waxay sidoo kale tilmaamayaan inay weerareen goob weyn oo uraniumka lagu bacrimiyo gudaha wadanka Iran haddii aan eego Trump ayaa caawa ku dhawaaqaya wadahadallada dawladda Iran ay la leeyihiin geedi socodkooda inuu yahay mid wanaagsan oo si habsami leh ilaa hadda dhinacyadu ay xogaha u kala qaadanayaan Israa'iil daboolka ayay ka qaaday khasaaraha ugu badan ee dagaalka ka soo gaaray intii uu socday tirada dhimashada ayay sheegeen dhaawaca ayaa ka daran waxaase ka sii ballaaran dadka guryahooda laga saaray ee barakaca ah oo hadda ay ku qasban tahay Tel Aviv hotel la qaaliya inay ku hayso xilli nidaamkaasi uu dhaqaale la'aan ba'an wajahayo Ruushka waxa uu leeyahay maadaama aan Iran kula jirno heshiis ballaaran waxaa suuragal ah warshadaheena wax soo saarka militariga intii ay Iran u ogol yihiin inaan sii karno iyadoo dhaqdhaqaaqyada Shiinaha ee gobolka ka soconaya qaaradda Aasiyana ay hadda sii xanuunjinayaan Mareykanka oo laga baqanayo dagaal weyne xooggan oo gobolkaasi galgali doona safiirka dawladda Iran u fadhiya qaramada midoobana waxa uu ku dhawaaqay Mujtaba Khamenei inuu yahay ninka maskaxda ah ee dagaaladan hagaya xilli Trump iyo Netanyahu ay u gudbiyeen warbaahinta adduunka ninkaasi inuu yahay howlgab magac u yaala oo kaliya xil loo cimaamaday haddaba gobolka bariga dhexe masiirkiisu waa sidee halkeena u soconaya qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijkan isku dul taagi doonaa waxaan ahay Cabdilcasiis Barrow khiyaarta ay nala socotay ku soo dhawaada YouTube-ka oo subscribe saara si aad u heshaan barnaamijyada kale ee faaqidaada ah ee aan halkan ku tabinayo haddii aad dhinaca Facebook nagala socotana sharaf ayay noo tahay inaad nagu soo biirto aad baad u mahadsantihiin ma ku daashay safaf dhaadheer iyo khidmado qaali ah marka aad doonaysa inaad lacag dibadda u dirto ma ka walwashay in lacagtu wakhtigeeda ku gaari doonto ehelkaaga ma kaa raageen lacaga aad ku tala gashay in lagu bixiyo iskuul ama maalgelin ganacsi Safari Remit ayaa kaa haqabtiraysa baahiyaha waa adeeg lacag diris online ah oo kuu sahlaya inaad lacag dibadda ugu dirto ehelkaaga iyo asxaabtaada waa adeeg fudud degdeg ah ammaan ah khidmadiisuna ay jaban tahay Safari Remit waxa ay kuu saamaxaysaa inaad lacagtaada gaarsiiso dadka kuu muhiimka ah meel kasta oo ay joogaan goor kasta oo ay u baahan yihiin booqo barteenna www.safariremit.com Safari Remit lacag dirsasho ammaan ah iyo tayo sare nidaamka Israa'iil waxa uu u muuqanayaa inuu ka baxayo ballamihii la galay ee ku saabsanayd inaan la bartilmaameedsan goobaha kaabayaasha nolosha iyo bulshada ah ee dawladaha dagaalka u dhaxeeya inaysan iska duqayn arrintani waxay ka dambeysay markii la weeraray magaalooyin kala duwan oo ku yaala gobolka bariga dhexe oo ay ka mid ahaayeen dalka Qatar Sultanka Imaaraadka Carabta iyo dalka Cumaan iyo qaybo ka mid ah nidaamka Israa'iiliyiinta Mareykanka ayaa arrintaasi waxa uu ku tilmaamay in ay tahay in xayndaabka dagaalka uu sii ballaaranayo
isla markaana aan si gunnimo ah loo dirinin oo ragga ishaya ay gobonnimo diriraan. hadda Israa'iil waxa ay bilowday in ay gunnimo dirirkaasi faraha la gashay. waxay goor dhow tilmaameen in ay weerareen xarunta ugu ballaaran ee sifaynta biyaha dowladda Iiraan oo Tehraan ku taala, waxana ay ku tilmaameen in ay tahay waxaan la aqbali karin. xarunta la weeraray waxaa la yidhaahdaa Barak, sida uu tilmaamay taliyaha guud ee ciidamada Israa'iiliyiinta General Eyal Zamir. arrintan waxaa looga gol leeyahay buu yidhi in la ogaado dowladda Iiraan in ay wajahayso mid ka mid ah dagaallo xooggan oo la fadirina, isla markaana Israa'iil ay qaadayso weeraradii ugu dambeeyay oo ay doonayaan inay ku xanuujiyaan halkaasi, isagoo intaa ku daray tani inay tahay burburinta dhaqaalaha iyo weliba ilaha nolosha ee malaayiinta dollar ay ka sameeyaan nidaamka Tehraan, sida uu hadalkan u dhigay. lama oga dowladda Iiraan jawaabta ay bixin karayso, maadaama ay hore u sheegtay haddii tallaabo xaggeeda kaabayaasheeda nolosha loo soo qaaday inay 10 tallaabo oo ka duwan ay qaadi karayso, sida uu ku tilmaamay Khalibaf, ninka hogaamiya baarlamaanka waddanka Iiraan. dhinaca kale Israa'iil waxay tilmaantay inay sidoo kale weerar ku qaadeen xarunta soo saarta waxyaabaha gaarka ah ee muhiimka u ah bacriminta uraniumka dowladda Iiraan, iyadoo arrintan ay noqonayso mid ka duwan weeraradii ugu dambeeyay oo maalmihii la soo dhaafay ka soconaya gobolka Bariga Dhexe. hogaamiyaha guud ee waddanka Jarmalka Friedrich Merz ayaa waxa uu ku dhawaaqay isna caawa Trump in uu u dhaqmayo si ka baxsan caqliga bini'aadamka uu ku fakaro. dagaalka gobolka Bariga Dhexe uu ka wadana ay tahay mid aan maxsuul iyo natiijo wanaagsan aysan ka soo bixi doonin. sidaa daraaddeed waa inaan rajada nolosha la dilin ayuu yidhi, oo laga fakaro sidii horey loogu socon lahaa dagaalkanna waqti kooban loo soo gabagabayn lahaa. ma aha dad aan ku dhaamin doonin in ay awrta ku raraan, ayuu u egyahay hadalkiisa. waxau yidhi rajada waa in dagaalka la dhameeyo, laakiin taasi ma muuqato marka la eego Maraykanka iyo Israa'iil siday arrintan ugu fogeynayaan mid aad u xeel dheer oo cumqigeeda aan la gaari karin. waxa uu Trump samaynayo waa arrin qariska tuurnimo ah oo natiijadoodu ay adag tahay in si degdega loo gaaro. xitaa ma jirta buu yidhi istiraatiijiyad cad oo Maraykanka iyo Israa'iil ay ka leeyihiin dagaalkan in la dhameeyo. marka la fiiriyo hogaamiye ka tirsan dowladaha NATO ee isbahaysiga gaashaanbuurta ah ku midoobay in uu sidan u hadlo waxay ka dhigan tahay Trump in uu weynayo saaxiibo culus. warbaahinta Maraykanku waxay sidoo kale tilmaamayaan in Trump uu ku dhawaaqay in la gaaray xilli fog in heshiiskan uu soo gabagaboomi karo. hadda waxaan u shaqaynaynaa si qoto dheer oo fog, Maraykankana ujeedadiisa ugu weyn waa dagaalka in la soo gabagabeeyo, ayuu Trump hadalkiisa ku yidhi. dowladda Iiraanna waxa ay leedahay Mujtaba Cali Khamenei, ayatullaahiga ugu sarreeya waddankaasi, waa mid badqaba oo wanaagsan. isaga ayaa iska leh tillaabooyinka ugu dambeeya ee dagaalka iyo amarada la bixinayo. sidaa daraaddeed Maraykanka iyo Israa'iil waxyaabaha ay dhoodhoobeen oo ay rabaan afkaaraha inay ku dhalan rogaan ma aha kuwa soconaya, ayaa la leeyahay. danjiraha qaramada midoobay u fadhiya dowladda Iiraan ayaa la hadlay wariyaasha oo la yiraahdo Cali Buhayrani, waxana uu leeyahay ninkan Mujtaba waa nabad qabaa, isaga ayaa hagaya dalka Iiraan, isaga ayaa iska leh hogaaminta ugu sarreysa, isaga ayaa ciidamada howlgelinaya, dhaqdhaqaaqa ugu dambeeya iyo weliba xalka gaarista tallaabooyinka adagna cidda iskale waa isaga. weliba hilaalada kacaanka cid kale kama amar qaataane, isaga ayaa go'aanada siinaya, ayuu yidhi. waxa uu hadalkan sii biritaaraya mid uu hore u sheegay danjire Ismaaciil Baqaa'i, afhayeenka wasaaradda amuraha dibadda ee dowladda Iiraan. tan iyo wixii ka dambeeyay markii Cali Khamenei la dilay, saadaashiisu inuu isaga iman kara ayay ahayd, taas oo Maraykanka iyo Israa'iilba ku noqotay wadna qabad ay ku shaqayn waayeen, kuna tilmaameen in ay tani tahay qariska tuurnimo kale oo dowladda Iiraan ay ku dhawaaqday. Israa'iil markii ugu horeysay waxa ay banaanka keentay khasaaraha ka soo gaaray dagaalka. waxay yiraahdeen 22 qof ayaa dhimatay, 5,000 oo qof ka badanna waa dhaawacmeen,
dad kumanaanana guryahooda ayay ka carareen weliba magaalooyin istaraatiiji ah oo falastiiniyiinta looga habsaday ayaa la leeyahay iminka waa haawanayaan oo inta badanba dadka israa'iiliyiinta ah waa laga saaray maxadka daraasaadka sare ee amniga Israa'iil ayaa waxa uu leeyahay dowladda Iiraan waxay adeegsatay 550 gantaal iyo 765 diyaaradood oo aan duuliye lahayn in nidaamkaasi ay ku garaacaan in ka badan 4800 oo qof ayaa laga daadgureeyay guryahooda Tel Aviv oo kaliya 1515 qof ayaa laga raacday oo halkaasi isaga tagay magaalada cimbaarista nuclearka ay ku hayaan Dimona la yiraahdo ay magaca ka bedeleen 975 qof ayaa ka cararay halka la yiraahdo Caraad 600 qof ayaa ka carartay halka magaalada la yiraahdo Beershebana 505 qof ay isaga carareen deegaanada kale ee dadka laga daadgureeyay waxaa ka mid ah Beit Shemesh Prague iyo waliba halka la yiraahdo Ramla oo ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan oo ay Israa'iil wax soo saarkooda nolosha ay ka heli jireen isla markaana ganacsiyo waaweyn lahaa dadkan waxaa lagu hayaa hoteello qaaliya oo ku yaala magaalada Ilaad ee xeebta ku taala ee dhinaca Urdun soo xigta iyadoo lagala baqanayo dhibaatooyin duqeymo ah dhinaca kale waxaa la sheegay 5492 qof in ay ku dhaawacmeen dagaaladii ugu dambeeyay Israa'iil waxay wajahaysaa mid ka mid ah dagaaladii ugu la yaabka badnaa oo ay galeen tan iyo markii loo xoogay dhulka Falastiiniyiinta iyadoo arrimahaasi ay taagan yihiin warbaahinta waaweyn ee Mareykanku waxay leeyihiin Israa'iil waxa ay raad guraysaa dowladda Mareykanka ujeedaduna waxay tahay in aan la gaarin haba yaraatee wax heshiisa majalada Axios ayaa xiganaysa iyadoo la hadlaysay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xafiiska madaxweyne ku-xigeenka JD Vance oo iminka u arkaya in Netanyahu uu raad gurayo doonayana wada hadallada iyo galka loo dhiibay in uu ku fashiliyo inkastoo Israa'iil ay tiri hadalladaasi waxba kama jiraan dowladda Iiraan ayaa ugu yaraan JD Vance u aragta inuu yahay ninka howlgalkan mashruuca wada hadalka hore u dhaqaajin kara maadaama Steve Witkoff iyo Jared Kushner ay ku tilmaameen laba nin oo laba wajiilayaal ah oo aan diblomaasiyadda wax weyn ka gayn ninkan dowladda Iiraan sababaha ay u aaminaysa waxaa ka mid ah intii dagaaladu aysan bilaaban waxa uu horey u dhaliili jiray tallaabooyinka Israa'iil ay qaadayaan iyo waliba barnaamijyada ay keenayaan ee ah dowladda Iiraan in la weerari karo isagoo u arkayo xogtaas inay tahay mid dhalanteeda oo la doonayo Mareykanka in lugaha loo geliyo xaalad uusan ka bixi karin dalka Ruushkana waxa uu sii daayay hadalladii ugu adkaa waxaana aad moodaa raayul caamka dunida inuu wax weyn ka bedelayo tan iyo markii dagaalka 28 bari soconaya la guda galay wasiirka muraha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa laga xiganayaa in uu leeyahay maadaama dowladda Iiraan kula jirno iskaashi difaac oo dhameystiran warshadaha wax soo saarka militariga dowladda Ruushku tallaabooyin ay qaadi karaan oo dowladda Iiraan ayaa inta qaanuunka wadankeena ogol yahay huba aan ku wareejin karnaa tan oo ka dhigan in Mareykanka lagu dhig bixin doono haddii dagaal uu la galo dowladda Iiraan isla markaana dagaalkaasi uu isu bedelo tan lugta oo maalmihii ugu dambeysay dowladda Ruushku ay ka digayeen haddii aan sii eego wararka ugu dambeeyana dowladda Iiraan ilaa iyo 1 milyan oo qof ayay diyaarisay oo dagaalada ka qayb galaya haddii jasiiradda Qaraaq la isku dayo dowladda Mareykanku inay qabsato jasiiraddan waa mid ka mid ah jasiiradaha ugu wax soo saarka badan dalkaasi oo 90% saliidda caalamka ee Iiraan u dhoofiso ayaa laga soo saaraa waxaana suuragal ah ciidamada guutada 82aad halkaasi inay yimaadaan